السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا جانك مو فركس. هدي أتها مالت كوات أصاب وقت الجانك كانوا حنكا عصنا إنها سبسكرايب لايك شير نوعد جنتيد. هدي أهرن لوجكتي أتها أصحابنا وحرنات وكم سنتها اللي جويس أنا لوجكتي هنيجي لو إن رجلنتي أهد لنك كومنتي شارك لايك أنا نص مسيت ما أنت محرم عنك هذا الله سؤال إن بدل يسوي دي أو أهد بينس هدي الآن العكو شبنا بينس كده العكتي الوهي لكرا هدان جوجو سومالي هدان جوجو دونك ميركل جوجو مركو أكل قاعد دونا dadka Soomaaliya joogo gooni waxaan ka sameyn doonaa insha Allah dadku waxa u fudud EVC iyo waxyaalo ay isticmaalaan Soomaali kaar bangi waa laga isticmaalaa hadda kaar bangi ayaa laga isticmaalaa jir laakiin adduunka meelaha qaar kama shaqeeyo marka Binance waxa u fiican Binance markaa haystid tusaale ahaan Binance markaa haystid waxa ku fiican in aad ku xiritid EVC gaada dad sarfaa jiro email laga sarfaa jiro kulay insha Allah intaasna waa idin sheegi doonaa laakiin aniga markaa halkan joogo aan rabo lacag inaan la soo baxo Binance lacag kala soo baxo maxaan aan rabaa inaan sameeyo waxaan rabaa inaan sameeyo waxa muhiimsan in Binance card way joojiyeen waa hore card la bixin jiray card way joojiyeen marka account kale aan haystaa lacagta Binance waxa uu doorsan doonaa account-kaas kadib lacagta waa kala bixi doonaa dadka EVC u baahan Binance gooda kambaniyada lacagta sarifo ayay u doorsan doonaan account-kooda inta haystaan USDT intay tahay dollar ahaan intay tahay EVC lagu soo diri karaa waxayna qaadan doontaa wax keer 5 second 6 second 7 second زائد وفضلها مرك إن شاء الله step by step وحنسمين دونا دولة هيدنا Binance يقلي دونا Binance مركان قال كدب وحنسمين دونا العقدي عن هستي عن ربعين عن قار كلا صباحه سألها العقد عن صباحه عن استعماله مرك سيدانكو استعماله سؤال مرك العقد هدان العقد شقيس سنة ذلك أيوة شقيس سنة سؤال كودينا هدان شقيس سامع عن العقد لو صباحه مليون كرا وحسب جرا العقد هدان شقيس ولا صباح كذا سياق كل صباح كذا مرك كوين أهان USDT ahaan la soo bixi doonaa waxaan ku soo dhishin doonaa account-keena aan haysano account-ka waxaan ka dhigan doonaa lacag baan aan rabo inaan ka dhigto kadib kaarkeyga aan haysto ayaan isticmaali doonaa dilayd kaarkeyga halkaas u yaala dilayd marka sida ugu fiican aan sameyn doono maxaa marka waxaan sameyn doonaa dilayd waxaan sameyn doonaa account-kan waxaan ku xiri doonaa Binance-ga markaan galo website-ka waxaan gali doonaa Binance kadib waxaan leenahay hore u socon doonaa dilayd بسم الله مركب log in Binance سمين دونا log in هالك سيد وجدنا Binance عشان كسميه وحوها سيد الله سميته لكن ما دام هيست وحن سمين دونا log in ما كسميه لبشي على جربه هديت تلفون كي وقلي كرا لكن محربة أنا جرب كمبيوتر كسيان أطوبة كمبيوتر كقلي دونا تلفون كي وحن كنت دونا كونك كلا أنا رب العقد أنا ربنا كشبه أنا كنت دونا بلاد marka waxaan dhigi doonaa Google aan qaadan doonaa Google waxaan qaadan doonaa sababtoo ah email-kayga aan toos ugu xiran doonaa ma u baahni email-kayga aan dooran doonaa email-ka igu samaysan kadib password i weydiin doonaa password-kaan gashan doonaa computer-kayga password-kiisaan gashan doonaa marka password-ka gashto kadib Binance hore u socon doonaa okay marka hore u socdo Binance waxa laga yaabaa marka inuu email ii soo diro oo verification ii soo diro oo ilaahay verification sameey verification ka sameyn doona verification ka marka maxaan ku sameyn doonaa waxaan ku sameyn doonaa open your Binance app on your phone telefonkeyga wax fur doonaa halkan aan soo saar telefonkeyga si aad aragtiin telefonkeyga waa kana Binance halkan ku qori doonaa Binance markaan qoro waxay weydiinaa inaan ani ahay qofka halkaas ka galay wuxuu leeyahay ma adiga qofka galay okay waxaan leeyahay yes I am anyway okay done kan way dhamaaday sheeko soo dhamaatay halkan muxuu sameeyay meeshii log in ka aan rabnay inuu galno automatic wuu iswareejiyay wuxuu imaaday account-ka dashboard-ka aan imaaday toos account-ka imaaday account-ka tusaale ahaan markaan fiirino marka maxaa account-ka waa imaaday account maadaama aan joogno maxaa rabnaa inaan ka sameyno waxaan rabnaa ka sameyno lacag inaan kala baxnaa rabnaa okay si aan lacag ula baxno lacag ma haysana horta computer-kana sidaas way haddii aan rabo inaan telefoonka ka sameeyo telefoonkan waa ka fudud yahay in oo aad ka sameysid hadda tusaale ahaan 109 complete ka hadda u dambeysay waalidkayga oo soo gashay kana 103 complete inta tii u dambeysay laba lacag u dambeysay halkan u jeeda marka haddaan dhaho USDC aan doorto oo aan dhaho marka waxaan dooran doonaa withdraw aan doortay USDC aan doortay select network TRC20 aan dooran doonaa TRC20
okay ethereum marbi withdraw crypto ku dhufan doona withdraw crypto markaa ku dhufto kadib waxaan samayn doonaa haddii ilaahay idmo enter halkaan ku qori doonaa withdraw crypto markaa ku dhufto halkaan waxaan ku dhufan doonaa USDC aan dooran doonaa network halkaan ka dooran doonaa network aan rabno TRC20 laakiin waa inaan ku aan keensanaa halkaas hore address waa inaan ku soo shibnaa enter your address kamaan address gurigeena enter address meesha ku taalo addresska aan rabno aan halkaan kala soo bixi doonaa addresska mobilkii aan rabaa inaan kala soo baxo addresska sababtoo ah akoonkan aan ka haysto bangigan aan ka haysto oo aan rabaa kaarkan aan rabaa inaan lacagta ku shubto oo aan ka adeegto marka bangigaas aan rabaa inaan galo si aan akoonkiisa aan usoo koobiyeysto waa haysta akoonka laakiin waxaan rabaa inaan soo koobiyeyo halkaan ku dhufan doonaa halkaan markaan ku dhufto tusaale ahaan meeshaan u socdo taas qaybta cryptada aadi doonaa toos crypto markaa aado waxaan leeyahay receive aan ku dhufan doonaa receive markaan ku dhufto waxaan rabaa USDT aan rabaa tusaale ahaan network ethereum qaadan doonaa kuwaan ethereum haystaan ethereum qaadan doonaa copy waxaan leeyahay network copy so simple network markaan copyeysto kadib waxaan aadi doonaa Binance aadi doonaa Binance markaa aado addresska soo copyestay address markaa soo copyeysto marka halkaan aan rabaa inaan address ku rido meesha halkaan ay ku qoran tahay addresska waxaan ku leeyahay paste address markaa halkaan ku rido network marka waxaan dooran doonaa waxaan soo doortay ethereum soo dooran doonaa hadana ethereum haddii haystaan ethereum okay ethereum network waa kana mar kale waxaan iska ilaalin doonaa network aan soo doortay waxaan fiirin doonaa one more time mar kale waxaan fiirin doonaa telefonkeygaan aadi doonaa waxaan ka fiirin doonaa network aan soo doortay inuu saxsan yahay in kale waa muhiim inaad iska ilaalisid telefonka markaan aado halkaan network aan soo doortay waxaa igu qoran inuu yahay ethereum halkaan waxaa ku qoran ethereum inuu yahay ethereum marka waa iska ilaalin doonaa network aan doortay inuu isleeyahay halkaan network aan ka doortayna inuu yahay ethereum okay wada isku fiiriyay labada network isku fiiriyay marka ma qaar rabaa in la soo baxo aday kugu xirtaa lacagta la soo bixaysid ana tusaalahan waxaan rabaa in la soo baxo tusaalahan $60 aan rabaa in la soo baxo waa tijaabo waxaan rabaa inaan baroway kaliya 60 markaan rabaa inaan la soo baxo lacagta igu jirta 200 xogaa waay 60 waxaa la withdraw markaan dhahno maxaa dhici kara marka continue ku dhufan doonaa continue markaan ku dhufano waxaan weydiin doonaa inaan verification aan ku sameeyo inaan ani ahay in kale inaan saxiixo marka still marka waa adag tahay in qof kale in oo Binance-ga lacag kala baxo haddii security-ga saas u adkaysatid marka telefonkeyga camera tagi doonaa dhanka camera telefonkeyga tagi doonaa telefonkeyga camera markaa tago waxaan ku aadin doonaa bis halkaas oo ay ku taalo halkaan ku aadin doonaa markaa ku aadiyo telefonkeyga halkaan soo saar markaa ku aadiyo wareega marka wuxuu leeyahay passwordka inaan sameeyo iga rabaa kulli ma arki kartid maadaama aan wax duway ma ogolaanayo okay marka wuxuu leeyahay waa la ogolaaday konto is dead withdraw is done so easy marka saas loo ogolaaday maxaa lacagta inaan helnay waa waxa saacad waxaa la joogaa 8:41 am 8:41 aan joognaa 8:41 maadaama aan joogno withdraw waa la ogolaaday 60kii waxay qaateen $2 $1 ay bari qaateen oo waxay u qaateen lacagta maadaama kala sarifaysid meesha u diraysid meelaha qaar waxa laga yaabaa $1 inay ka qaataan meelaha qaar ka yar inay ka qaataan laakiin hadda halkan waxaan u jeedaa 60kaa soo dooranay waxaa noo imaan doona 58 marka meeshaan muhiim waay meeshaan muhiim waxay u tahay haddii lacala akoon aad gadanaysid akoonka ay ku taalo 50 ama 32 ku taalo 32 bixisid akoon ma heli doontid sababtoo ah 32 waa inaad ku dartaa commissionka ay qaadanayaan marka waa inaa og tahay lacagta fiiga laga rabo hadda fiiga waxay ahayd waxay naga qaateen $1 iyo bar marka waxaan kusoo shibi lahayn 61 iyo bar haddii aan wax gadan lahayn laakiin hadda lacag aan rabo inaan bangiga igu soo dhacdo waay kaarkan waa haystaa lacagta waa kusoo shibin doonaa kadib waa idin tusi doonaa inay lacagta imaatay in kale marka waxaan leeyahay withdraw okay aan leenahay withdraw wuu shaqeeyey markuu shaqeeyo marka wax yar process mara
markuu process mara kadib okay noqonaa marka hadda withdraw hadda processka hadda waa kana hadda aan fiirino marka processka waa kana withdraw order waa samaystay submit process ku jira lacagta aad dooratay lacagtaas waa saacad waa kana 841 waa kana message ii soo dhacay almost hadda intaan sharaxay message ii soo dhacay telefonkeyga halkan ku soo xiro okay message ii soo dhacay message ii soo dhacay maxaa waaye aan la fiirin waa kana message ii soo dhacay waxa la leeyahay USDC oo you receive USDC quota 8.5 ayaa heshay saacad markay ahayd saacadaas okay intaas heshay way u qoran tahay okay ما شاء الله مسد انت عن شرحي step 1 done system process واي كان اصلا عقار نقونين او waxay soo dhacay telefonkii message ay soo dhacay marka halkan telefonkii aan ku soo xiri doona message-kii soo dhacay aad la fiirin doona message-kii soo dhacay waa kana waxa la leeyahay okay halkan hoos aan geeyo message-kii soo dhacay waa kana halkan ku qoran tahay tusaalahan withdraw or maxaa la lahaa USDT withdraw aan samaysay you have sexual withdraw 58.5 USDT maxaa la lahaa waa la process gareeyay marka maadaama message-kan ii imaaday Binance-ga message-kan imaaday waa ku dhufan doonaa message-kan ku dhufan doonaa marka aan fiirino konto isdeed waa kana konto isdeedii complete halkan way ka dhamaatay okay halkan maadaama ay ka dhamaatay konto isdeed halkan way ka dhamaatay marka waxaan fiirin doonaa halkii oo bangiga aan lacagta aan ku shibano lacagtii ma imaatay waa taas oo muhiimsan lacagtaas hadday imaanin waa wax kale marka waxaan leenahay face ID aan dooran doonaa okay meeshaan ka bax crypto tag konto isdeed waa kana halkan ay taalaa konto isdeed $8.42 markay ahayd konto isdeed $8 heshay meeshaan ku taalo lacag kale aan la baxay taas marka konto isdeedaas fiiri waxa maadaama processka uu ka soo maray dhanka Binance-ga company-gan oo kaarkan iska leh asna wuxuu marin doonaa process kale processku marna maxaa waaye uu ka xaqiijinaa inaad adig tahay in kale marka uu su'aasha meesha inta waxa waaye lacagtan yaa iskale ma adaa iskale meel kale ay ka timaaday yaa ku soo diray meesha ku taalo marka waxaan dhihi doonaa shakhsi ahaantii isku soo diray myself ana isku soo diray halka marka screenshot ka qaadi doonaa dilaan meesha ahayd maxaa la lahay lacagtan yaa ku soo diray marka waxaan ku qortay ana isku soo diray myself marka ku dhufatid tusaalahan lacagtii aad ku samaysid withdrawga account kale markay intay soo gaarin waxa laga yaabaa inay qaato process hadda meeshaan ka muuqato meesha waxa ku qoran inay ku jirto pending marka waxa laga yaabaa marka qaar inay ku jirto daqiiqado marka qaar inay si degdeg ay maxaa la lahay ay u imaato marka pending ay ku jirtaa lacagta aan fiirino marka inay pending ka baxdeen kale pending ay ku jirtaa marka waxaan sugi doonaa ilaa pending laga saaray pending waqti qaadan kartaa in laga saaro marka pending marka laga qaado kadib waxaan isla fiirin doonaa sida xaaladda ay noqoto marka insha Allah taas intaas ahayd kulley I hope inaan wax badan ka fahanay videogan pending waa laga saaray hadda meesha muuqato pending waa laga saaray hadda meesha muuqato waxaa ku qoran complete way dhamaatay marka saas dhamaatay maxaa la samayn doonaa marka lacagtii crypto ahaan inoogu jirtaa marka waxaan rabnaa lacag inaan ka dhigano waddankaa joogto lacagtiisa ha ahaato lacag nooc ciribta ha ahaato marka waxaan leenahay back gadaan ku dhufan doonaa kadib more aan ku dhufan doonaa home-ka ku dhufan doonaa home markaan ku dhufano meeshaan ay more waxaa noogu qoran keliya hal baan inoogu jirto qaybtaas kooda waxaan ku dhufan doonaa more markaan more ku dhufano exchange aan ku dhufan doonaa exchange markaan ku dhufano halka sare waxaan dooran doonaa USDC aan haysano halkaan dooran doonaa USDC aan haysano waa $58.50 marka waxaan ka dhigan doonaa waxaan leenahay nooga dhig tusaale ahaan meesha banka noogu soo biirto bank ka dhigaan leenahay marka waxaan samayn doonaa $58 ayadana waa ku qori doonaa $58.5 tusaale ahaan wixii markaa ku qoro marka waxaan taaban doonaa qaybtan review aan taaban doonaa
order confirm aan ku dhufan doonaa marka order confirm ku dhufto marka orderkii lacagta USDT waxaa loo wareejiyay waxay noqotay 43 pound waxaa loo wareejiyay dhanka bank ay noqotay marka halkan cadeen waxaan haysanaa konton sideedada USDT waxaa ka dhigatay maxaan lahayd baan ka dhigatay halkaas ay ku qoran tahay marka kaas okay marka waxaan leenahay close marka halkan waxaan ku dhufan doonaa account-keena aan ku dhufan doonaa account-ka marka ku dhufano account-ka marka ku dhufan halkan waxaan u jeednaa in 48 inay noo imaatay halkan waxaan u jeednaa 43.4 oo ah 48 USDT inay noo imaatay halkaas ugu jeednaa halkan waxaan u jeednaa 48 USDT inay noo imaatay marka muhiim ahaan haddii Soomaali ay joogto salaxan oo aad lacagta inay saas ku ay si degdeg ku imaato marka waxaa samaysan kartaa qof ku sarifo ama qof ku kalsoon tahay ay lacagta u dirsan kartaa asiga ku sarifi karo marka insha Allah taasna kulli mawduuc kale ka dhigi doonaa oo ka baxsan laakiin way fududahay lacagtaada inaad heshid sida hadda aan ku helaba ay u fududahay marka lacagtii waa kana kalkan isticmaal doonaa meesha rabno aan adeeg ku soo samaysan doonaa lacag halkaas ay ugu jirtaa marka insha Allah I hope inaan ka fahanay sida ugu fiican oo lacagta su'aasha ahayd lacagta markaas sameeyno ma la soo bixi karaa sidaan la soo baxaa inaan halkaas aan ku soo koobno ay noqoto inaan la soo bixi karno oo cadeyntiina aan tusnay marka halkaas aan ku soo xir doonaa hadii Ilaahay marka inta aan soo gaarino video xiga marka waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waxaan noo ballan ogeysiis shirkadda duulimaadka Waabay Travel oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kana mid ah shirkadaha ugu adeeg wanaagsan waxay ugu bishaareynaysaa dhammaan macaamiisheeda ku kala sugan daafaha caalamka in shirkaddu ay xoojinayso tayeynta adeegyada ay u hayso bulshada adeegyada shirkadda idin haysan waxaa ka mid ah adeegyada xajka iyo umrada oo tayeysan fiiro gaar ah umrada waa full package waxaa la socda tikidyo go and bag hotelo 5 stars basas casri oo loogu talagalay macaamiisha inta ay ku sugan magaalooyinka Makka al-Mukarrama iyo Madiina al-Munawwara waa 15 maalmood gudahooda waana adeegyo raqiis ah oo ku raali geliya cidii doonaysana intaasi shirkadu ay uga sii kordhinaysa Waabay Travel oo xiriir la leh shirkadaha caalamiga ee duulimaadyada diyaaradaha sida Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Emirates iyo Ocean Airlines waxay kordhinaysaa hufnaanta iyo tayeynta adeegyada macaamiisha iyadoo lagu adeegayo hab fudud oo lagu qanci karo lehna dal iyo dibadba duulimaadyada gudaha waxaa ka mid ah Hargeysa, Dhuusamareeb, Garowe, Baydhabo, Kismaayo, Beledweyne, Gurceel, Caabudwaaq, Gaalkacyo iyo Doobley duulimaadyada dibadda Nairobi, New Delhi, Turkey, Uganda, China, Malaysia, Pakistan, Ethiopia, Eritrea, Masar iyo Djibouti waxa sidoo kale adeegyada kamida in laga soo xajiyo lagana soo umriyo ehelada waalidiinta geeriyooday iyadoo loo diyaariyay culamaa u diin aqoon durugsan u leh adeegyada xajka iyo umrada waxa sidoo kale macaamiisha si heer sare loogu adeegi doono inta ay joogaan dhulka barakaysan sida hotelo 5 stars iyo gaadiid waxaana kuugu diyaara shaqaale loo carbiyay u adeegista dadka haddaba shirkadda waxa ay xarun ku leedahay waa beri taleex Daarul Tawxiid Apartments ka soo horjeedka Xayaat Mall ama kala xiriir telefoon nambarada shaashada ku qoran mahadsanid